عودة لسولويه. السلام عليكم. دمان كلانكا دبالدقة صاحبكي رشيد محمد ومهسنتي دمانتين waxaan rabaa aan jeclahay dhowr eray oo siyaasadeed inaan iraahdo waayo halka siyaasi ayaan hadda ugu xafladeena ku soo dhaweynayna waa la dhici karta in kursiga quruxda badan ee Rashiid hadda uu fadhiyo oo ku soo dhaweynayno inay u aragto arrin iska yimi ma aysan ee waxa ka horeeyay 20 sano oo dhidid ah waxa ka horeeyay soo jeed fara badan waxa ka horeeyay in reer la dayaco haw malaynina inay ciyaar ku timi kii u malaynayo iska bax waxa aan hubaa oo intiina hadda meesha fadhida ina hadhow oran doontid maxaad ii qabanaysaa daawa maxaan qabanaynaa waa inaa isku disaa sababta oo ah haddii uu guulaysto oo uu ku guulaysto in uu wax qabto adigana waxbaa ku qabsoonaya laakiin haddaan anu garanayo oo anugu aan fahmayo inaad u baahan tihiin idinku intiina badan oo halka fadhida inaad fahamtaan horta sida waddanka looga noolyahay marka hawl waa u hawl yaraynaysaa isaga iyo inta kaleetoo la mid ah waxaan idiin sheegayaa sanadkani waa sanad taariikhi ah 2022 waa markii taariikhda dalkan ugu horeysay Stockholm laba nin oo Soomaali ah ay gudoomiye xaafadda ka noqdeen inaad ogtiin kala mid garanayo saaxiibka Rashiid Qurama labaduna ay isku isbi ka tirsan yihiin waxaan jeclaan lahaa caawa inta ka badan tihiin baan jeclaan lahaa waayo waxaan ogahay qaybsiga dhexdiina yaala inay siyaasiyiinta dhaawacayso idinka hawl bay idin taala waliba Soomaaliska register hawl waxa weeye tii anigu aan soo sameynay ya ayaa maanta dayaca Soomaali baan rabnay inaan meel isugu keeno regisku maanta waa kala qaybsan yahay Soomaali kuma midaysana haddii taa la helo magaca dadka Soomaaliyeed ayaa midoobay saaxiibkay حمدي هذا هالكابو فديا أنا وحنا كورلا حمديو هدي أدربتي إن حل إساسياتي وين الصومالي بالإنجليزي يسوي يرتو وين مود الشوغان كمان هوسي مع دام ودكتها وحلاقة يابا إن أنا تاسع تهاي ما أريكر وأهل سياسي هدي كيف وكل بس كده يعني ما وقت ما يبقى عن الشيء بس كده ما أوكي أنت أمريكا لقى بحر وحيدين شيء يا سويدن مركا كل نقول أنا وين أريد لما حبيت ديون سويس وتاعي وحنا واشهو يقرأ عليها وحوي سويدن وحكت شراء لما بقول يسقاشن دقمة باكجرة لبيه سقاشن كاس دقمة وحوي بديدو ويكير يريهن يا رب وحوي قياستي شرية لباتن دقمة أيها كوين يا رب مركز الله يسكتها يا وحا عن حسوستانو قدوميها مكان حافظة كاها اسبون التنستا ayaan safar waxaan ku tagay Garowe niman baan wada kulanay waxaan uga sheekay waxaan ka shaqeeyay waxaan ku yiraahdo anigu meesha aan joogo degma ahaan way ka dakhli badan tahay Puntland oo dhan laakiin mushahara baan ku leeyahay
sooma garan laakiin marka maxay tahay maxaan taa ula jeedaa waxa weeye 290 ka gobol degmo ay ka jiray Sweden 25 qura ayaa ka dad badan Yaraba marka macnaheedu waxa ay tahay kuwiina Kalmar ka yimi kuwiina Katriina kuwiina Faalo ka yimi waxa ka dad badan Yaraba way ka dakhli badan tahay inkastoo awoodaha ay leeyihiin Faalo ama meelaha kaleeto ama Kalmar oo aysan lahayn sida markay noqoto cashuurta oo kaleeto waxaana jirta xaquuqaha bini'aadamku leeyahay waxa laga hadlaa xaquuqaha insaaniga baa laga hadlaa xaquuqaha insaaniga ee dalkan uu leeyahay adduunku badidiisuna isku aqoonsan yihiin 100% waxa laga sameeyaa waa degmooyinka waxa la sheegay guriga la sheegay waxbarasho la sheegay caafimaad baa la sheegay dhamaantood intaas oo dhan waa taas waxana waa laga qaban karaa wayna macnay leedahay qofka markaas jooga anigu Rashiid waqti dheer baan soo wada shaqaynay waan soo wada dagaalanay waxa aan ku faraxsanahay aan huba aan oran karaa intii hadda halka meesha jooga si aan u soo wada shaqaynay u malayn maayo in cid kale soo wada shaqeeyeen baan anigu filayaa fikirna waa wada qabnaa ya waxa laga yaabaa way iga fiican yahay aniga way iga xishood badan yahay ya laakiin waa nin waxa uu rabana garanaya waxaan anigu aan leeyahay maanta caawada ma rabno inaan culayska isaga saarno laakiin culayska waxaan saaraynaa community-ga Soomaalida ee halka joogta ha noqoto ururada ha noqoto masaajidada ha noqoto hadii ay iyagu isqaataan siyaasaddu way hagaagaysaa masaajid ba hadda laga hadlayay oo la sheegay waxaan sheegaynaa masaajidka dhanka siyaasadda kuma xirna masaajidka siyaasaddu way dhamaysay waliba mid qura ma dhamayna dhowr bay dhamaysay xaafadaheena kana waxa ay ka bixi weyday way ka socon weyday waa dadka Soomaalida lacag baa xitaa la helay anigu waan ogahay lacag baa taala hadda masaajidka lagu dhisay ya marka guriyaha waxaan ognahay in la xaliyay aniga iyo Rashiid waxa hore noo soo maray 48 qoys oo caruur ah oo ay dhowr boqol gaarayaan oo lagu hayo Vanderham lagu hayo meel dadka Misbruka ay wada degan yihiin 3 bilood baan ku dhamaynay 40 guri baan bixinay 36 waxa qaatay qoysas Soomaali ah iyagoo sharci ah ma aha marka ciyaar ma aha waxaan rabaa ugu dambeyntii inaad fahanto idinku waxa doontaan idinku caaw halka isugu yimaada oo xafladeeya laakiin dad baan xafladeynayn dadka xafladeynayn waxa ay ku maqan yihiin in xafladuna ay khalad tahay in dhab ahaan aad noqotaan awood Soomaalidu dad yar ma aha boqolkiiba hal wadanka waxa jooga waa Soomaali ya waxa weeye waa cudud siyaasadeed ya waa cudud siyaasadeed cududda siyaasiga waxay ku xiran tahay hadba sidaan idinku isu abaabushaan cududda siyaasiga waxa ay ku xiran tahay sidaan idinku u wada tashan kartaan waana dareemaya anigu siyaasadda dambi ma saarayo laakiin masaajidyada ururada ayaan saaraya haddii taas ay wax ka hagaagaan waad guulaysanaysaa waa mahadsantiin haddaad ku dhaarto waa mahadsantiin